dalkan Mareykanka waxaa booqasho ku jooga wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Faraton. Xuseen Barre ayaa xarunta VOA da Washington wareysi kula yeeshay wasiirka isagoo ugu horreyntiina weydiiyey ujeedada safarka. Runtii ilaa imika muddo gaaban baanu joognay gebigay maalintii saddexaad. Muddadaas waxaanu aragnay dhowr iyo 10 xafiis oo dawladda iyo Congress-ka iyo hay-adaha talada iyo fikirkaba laga qaato ama think tank la yiraaho in badan oo kamid ah aanu dhowr iyo 10 gaaray. Maxaad ka wada hadasheen? Waxaanu ka hadalnay waxyaalo badan oo khuseeya danaha Somaliland iyo Mareykanka iyo caalamkaba. Intooda badanna si fiican oo runtii nuxur badan ku jiro ayaanu uga wada hadalnay ama aanu isu afgaran. inkastoo xilka ku cusub tahay haddana mucaaradku waxay idinku eedeeyaan oo xukuumadda ku eedeeyaan inay ka gaabisay siyaasadda arrimaha dibadda. Sidee u aragtaa arrintaas? Wallahi uma arko inay sidaas arrintu tahay. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland waxa qabaa wixii xil ka saaraa arrinta inay bogatay oo qabatay in allaaliyo intii haatan ay loo baahnaa hadday tahay inay caalamka gaarsiiyaan qadiyadda Somaliland iyo inay ka dhaadhiciyaanba iyo wixii iskaashi ahaa ee xil ka saaraaba inay gudatay baan u arkaan. Doorashooyinka Somaliland dib ayay u dhaceen. Sidee haddaba beesha caalamka iyo dalalka idinka taageera doorashooyinka u arkeen arrintaasi? Arrinta doorashooyinka wadamada naga taageera way la socdaan si wanaagsan bay ula socdaan arrinta oo xuquuqaal ugu yihiin. Dhawaanna way tageen dalkay tageen hay'adaha ugu badan ee naga caawiya oo kuwa reer galbeedku ay ka mid yihiin. Waxaanu aragnaa in isfahan badan laga gaaray arrinta. Guud ahaanna wixii khilaafa ama isafgaran waayay arrinta ka jiray dalka gudihiisu iminka meel wanaagsan bay marayaan. Waxaanu aragnaa kuwo la xalili karo oo heshiis laga gaari karo oo aan markaa arrintii dib u dhaca wax laga qaban karo. Dawladda federaalka Soomaaliya waxay ku baaqday in dib loo soo nooleeyo wadahadaladii Somaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeyay. Arrintaasi maxay idinka qorshaysan? Somaliland mar kasta diyaar bay u ahayd iyadu marra kama horimaan mana diidin kamana gaabin arrintaas. Mar walba diyaar bay u ahayd in Soomaaliya wada hadlaan oo ay miiska isugu yimaadaan oo dhinac waliba soo bandhigo wixii qorshe ah ama talo ah ama fikir u haya arrinta ku saabsan. Dawladda Mareykanku waxay ku dhawaaqday in xafiiskoodii arrimaha Soomaaliya ay u rarayaan Muqdisho. Idinkuna markaad Mareykanka la hadlaysaan waxaad tegi jirteen inta badan xafiiska Nairobi oo u qaabilsanaa guud ahaan arrimaha Soomaaliya. Ma laga yaabaa mustaqbalka inaad safaaradda Muqdisho ku taala tagtaan? Taas lagama yaabo. Ma dhici karto. Malayn maayo in marba ay dhici karto. Dawladda Mareykanku wada hadal iyadu haddii meeshii aan isugu imaan jiray ay ka guurto iyadu xamar tagto iyada u taala sida aanu isu arkayno. Meeshii kale ee aanu ku wada hadli karo oo waanu tegi karaa iyana way oo imaan karaan haday doonayaan laakiin inaanu xamar isugu nimaadnaa waqtiga kan wax suurtagal ah oo muuqda ma aha. Maxaa idinka hortaagan? Waxaa naga hortaagan Soomaaliya khilaaf naga dhaxeeya oo aanu ishaynaa anagoo dhamaysana taas oo ay ay meel istaagtay mooyaan ka horna ma dhici karto inaanu isugu nimaadno. Waatay san ka warqabno bariga Afrika waxaa ka jira isbeddello fara badan oo hormuud u yahay ra'iisul wasaaraha Ethiopia. Somaliland arrintaasi ma saameyn kartaa isbeddelladaas? Isbeddellada Afrika ka dhacaya ama geeska Afrika ka dhacaya anagu ilaa iminka uma aragno wax dhibaato ah. Waa soo dhaweynaynaa waxaan u aragnaa inay kuwa loo baahan yahay ahaayeen. Haddiise annaga saameyn aanu iminka ka welwelsannahay oo waxna yeeli karta ama annaga lidnagu ah oo aanu aragnaana ma jirto. Laakiin awalna xiriirka naga dhexeeya annaga iyo Ethiopia iyo ama dalalka kulligoodba wuxuu ahaa mid ku dhisan danaha la iska leeyahay. Mid idina gaar uma ahayn oo mid markaa haddii danaha laga baxo dal waliba dantiisa si ku gaari lahaa ayaa u taala laakiin ilaa imika annaga wax dhibaato ma aragno. Inta isbeddelku dhacay kadib waa sidee xiriirkiina idinka iyo Ethiopia? Aad buu wanaagsan yahay. Annagu si aanu aragno propaganda badan iyo waxyaalo laga sameeyay baa jira dacaayad hogayada waxa ninkii safiirka u ahaa meesha dalka u joogay oo laga bedelay baa jirtay. 60 nin ama 60 safiir oo Ethiopia ay dibadaha dalka adduunka ka soo celisay oo
ay dib dalka ugu soo celisaba ka mid ahaa kaasaa dad badan u turjunteen oo u arkeen mid dhibaata ku jirto oo xiriirkii waxyeelaya anagu taa uma aragno wuuna soo socdaa dadkii lagu bedeli lahaa way soo socdaan qaarkood already staafkiisii wixii la bedelay waa yimaadeen bedelkoodii kii madaxda ka noqon lahaa ama safiirka ka noqon lahaana waa soo socdaa waana sugaynaa lakiin wararka qaar baa sheegaya in hoos loo dhigay maqaamkii aad ku lahaydeen xafiiska aad ku lahaydeen Addis Ababa ma jiraan wararkaas waxaa laaliya wax ku jira puntland aad buu usii kordhay xafiiska iyaga wax isbedela iyo wax hoos u dhigaa dacaayadkaasu bay ka mid yihiin arrintaasu ka mid tahay wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon ayuu ahaa